taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Sambalolshe ayaa soo jeediyay in la hakiyo qorshe soo socday muddo sanadooyina kaasoo ku tilmaamay mid halis badan keenaya. Sambalolshe oo maalmo ka hor xafiiska hay'adda nabad sugidda kala wareegay Mahad Maxamed Salaad ayaa qorshahani uu ku tilmaamay mid aan lagu baraarugsanayn laakiin aad u halis badan waxa uu u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud si gabi ahaantiisaba loo joojiyo. Arrinta uu dalbaday in la hakiyo Sambalolshe ayaa waxay tahay in xubnaha ka soo goosanaya shabaabka ee gacanta u soo galaya dawladda marka dambe lagu daro ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya taasoo uu sheegay inay qataro badan ku gadaaman yihiin. inta badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa qorata xubnaha ka soo goosanaya shabaabka ee gacanta u soo galaya dawladda taasoo sanadihii dambe noqotay wax aad u soo badanayay. agaasimihii ka horeeyay Sambalolshe Mahad Maxamed Salaad ayaa la sheegay inuu qoray xubnihii ugu badnaa oo ka soo goostay dhanka kooxda Al-Shabaab isla markaana dawladda isku soo dhiibay kuwaas oo dhammaantood baa laga dhigay ciidamada dharcadka ee gacanta ku haya nabadgelyada magaalada Muqdisho. agaasime Sambalolshe ayaa u soo jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh inaan dib dambe loogu soo darin laamaha ammaanka xubin ka soo goosatay kooxaha argagixisada oo aan la aamini karin maadaama qofku uu yahay mid horey u qaatay fikirkaasi aadka u fooshaxun. tallaabadani ayaana noqotay mid aad loogu ammaano taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA maadaama dhibaatooyin badan lagala kulmay xubnahaasi soo goosanaya kadibna loo qorayo ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya. horey waxaa loo ogaaday in qaar badan oo iska soo dhiibay kooxda aysan weli ka tanaasulin fikirkoodii khawaarijta taasoo qatar weyn ka dhex abuurtay laamaha ammaanka iyo hay'adda sirdoonka qaranka. dhowaan ayay ahayd markii xubin ay shabaab ku soo dhex darsatay ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya uu laayay saraakiishii ka socotay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta. weerarkaasoo ka dhacay xerada General Gordon ee magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaana dabiin ka ahaa askarigaasoo laga soo qoray deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. dabcan waxaa kaloo suuragal ah in sidaasi si la mid ah qaar ka mid ah shabaabku xubnahooda sirdoonka ay u soo diraan inay iska dhigaan kuwa isku dhiibay dawladda Soomaaliya si kadibna ay u shaqaalaysiisa dawladdu oo ay halkaasi uga maleegaan dhagaraha khawaarijtu ay ku caanbaxday.